bismillahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadii daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ismaqal arag suuban mar kale kusoo dhawaada daljir media waa habeen kale oo aan ku kulmayno tabinteeni tooska ahayd inagoo mar kale isdul taagi doona xaaladaha ama arrimaha siyaasadda ee dalka Soomaaliya. Caawa waxaan isku dayi doonaa inaan maxaa la yiraahdaa falanqeyn yar ku sameeyo arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale waxyaabaha kusoo kordhay ka cusub. Waddooyinkii dambe waxaad ogeedeen iyadoo la isku haysto doorashada iyo shirarka ay isugu imaanayeen madaxda Soomaalida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo isagu markaasi weli madaxweynaha sharciga ah ee dalka Soomaaliya ka jira marka loo eego dastuurka dalka Soomaaliya ayaa waxa ay labada madaxweyne ee Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Siciid Dane ku eedeeyay inuusan ahayn madaxweyne sharci ah muddaxileedkiina uu ka dhamaaday isla markaasina uusan ogolaan inuu doorasho qabto shuruudo badan oo noocaasna ay kusoo rogeen. Haddaba waxaan rabaa inaan isdul taago caawa shuruudaha ay markaasi soo jeedinayeen min bilow ilaa iyo caawa aan taagana. Markii hore ee dhuusmareeb la isugu tagayay shirarka la isugu imaanayay qodobada ay markaasi inta madaxweynaha xilkii muddaxileedkiisa ka dhamaanin waxay ahaayeen qodobada ay soo jeedinayeen in maxaa la yiraahdaa madaxweynuhu doorasho waqtigeeda ku qabto muddo korin aan la aqbalaynin isla markaasina aysan aqbalayn doorasho qof iyo cod ah. Waxaad ogtihiin madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisu markaas xilligaas waxay ku doodayeen in doorasho qof iyo cod ah dalka laga qabto isla markaasina doorashadan aan shacabku aysan cod ku lahayn laga soo daalay loogana gudbo doorasho qof iyo cod ah. waxaana ka mid ahayd shuruudihii ama qodobadii uu doorasho ama campaign-ka ama ololaha doorashada ku galay madaxweyne Farmaajo inuu doorasho qof iyo cod ah dalka gaarsiin doono. Haddaba mucaaradka Soomaaliya oo arrintaasi ka hor yimid ayaa waxa u suurtagal weyday Farmaajo iyo kooxdiisa inay doorasho qof iyo cod qabtaan. Aakhiru saaci ama muddooyinkii dambe waxa ay ogolaadeen madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisu inay u tanaasulaan dhinaca mucaaradka isla markaasina la aado dalka uu aado doorasho markaasi dadban oo nooc loo yaqaano doorashada xulista ah oo xildhibaan la soo xulo sida hadda lagu soo tago Farmaajo iyo kuwii ka horreeyay. waxay soo jiitantaba hadba shuruudo cusub soo rogaanba waxaa la gaaray 8 February oo madaxweynaha xilkii uu ka dhamaaday. shirar fara badan oo madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in la isugu yimaado maysan suurtagelin waxayna ka suurtageli waayeen labada madaxweyne Axmed Madoobe iyo Siciid Dane. iyadoo sidaas ba haddana waxaa dhex galay oo arrintii soo fargeliyay beesha caalamka iyo sidoo kale saaxiibada siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan kooxda C6+ loo yaqaano iyadoo aad u danaynaysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya. waxa ay muddo madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay shir la isugu imaanayo oo ka dhici doona magaalada Muqdisho gudaheeda shirka may soo qayb galeen Axmed Madoobe Dani waxa shirkii ka soo qayb galay saddex madaxweyne maamul goboleed oo kale waa xalada Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabelle iyo gobolka Banaadir iyo wasaaraha. sidoo kale isbahaysiga mucaaradka ama midowga musharaxiinta loo yaqaano waxay qabteen shirar kala duwan oo ay markaas ku eedeynayeen madaxweyne Farmaajo inuusan sharci ahayn banaalbaxyo fara badan oo markaas Muqdisho ka dhacayay qaarkood rabshado isu bedelay qaarkood markaas boob hantideed ay ka dhasheen. waxay soo jiitantaba ugu dambeyntii waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madoobe Siciid Dane oo iyagu markaasi shuruud ka dhigay inaysan ka bixaynin xerada xalani gudaheeda isla markaasina ay marti u yihiin beesha caalamka. halka markay marayso madaxweyne Farmaajo waxa uu ku baaqay shir ay uu isugu yeeray madaxweynaha maamul goboleedyada isla markaasina ka dhici doona isla xerada xalani gudaheeda. ogow Farmaajo wuxuu ka tanaasulay doorasho qof iyo cod ah waxa uu ka tanaasulay haddana in maxaa la yiraahdaa shirka uu ka dhaco magaalada Muqdisho haddana wuxuu ka tanaasulay in markaas ama wuxuu u tanaasulay shirka inuu ka dhaco isla afisoni oo iyagu ay dalbadeen Axmed Madoobe Siciid Dane. shirkii waa uu furmay maalintii loo balansanaa oo ahayd 15 bishii Maaj shirkaas inuu ka furmo xerada xalani gaar ahaan halka loo yaqaano afisoni. madaxweyne Farmaajo goobtii waa yimid saddex maamul goboleed kalena waa yimaadeen waxaan goobta soo xaadirin Axmed Madoobe Siciid Dane oo iyagu shuruudo hordhigay inay shirkaas qayb galaan. shuruudahaas waxaa ka mid ahaa madaxweynuhu inuu xilka ku wareejiyo wasaaraha in goobta lagu shariyo amaankeeda ay Amisom sugto in maxaa la yiraahdaa xilka laga qaado taliyaasha ciidamada qaarkood Fahad Yaasiin iyo sidoo kale Saadiq John in shirkay ka soo qayb galaan midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Shakuur iyo musharaxiinta kale fara badan. Farmaajo oo arrintaas u cunto muweysay tiimkiisu ayaa shirki ku kala tagay maalintii labaad baad la isugu yimid kamay soo qayb galeen Axmed Madoobe Siciid Dane haddana waa lagu kala tagay haddana maalintii saddexaad ay ka soo qayb galeen inta warbaahinta ay kala socoteen mar rabay waqti badan ku sii bixiyo. ugu dambeyntii waxaa haddana madaxweyne Farmaajo ka tanaasulay ama u tanaasulay qodobadii ay doonayeen qaarkood oo ahaa
in goobta ammaankeedu ay si guud u sugaan ciidamada amisom laakiin ammaanka ama ciidamada la socda madaxweyne farmaajo aysan ka haraynin. sidoo kale waxa uu ogolaaday in sheekh shariif iyo xasan sheekh shirka kasoo qayb galaan maadaama ay yihiin laba madaxweyne oo horey Soomaaliya usoo maray, in xafladda furitaanka lagu casuumo ay yimaadaan oo ay aragtidooda ka dhiibtaan markaasina laga dhageysto. halka markaa meereys haddana weli waxa ay keeneen shuruudo kale oo cusub oo ah in madaxweyne farmaajo uusan ahayn madaxweyne sharci ah xilkana uu wareejiyo. isla arrintiis qodobkaas isaga ahna shalay ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya waxay warqad u qortay qaramada midoobay ee ku cadeynayso in maxaa la yiraahdaa ammaanka doorashada Soomaaliya ka dhici doonta lagu wareejiyay gabi ahaanba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. halka markaa mareysay oo la sugayay haddana inay doorashada ama shirkii uu furmo oo ay isu yimaadaan shanta maamul goboleed madaxweynayaashooda iyo madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ay kulmaan oo shiraan. haddana maanta waxaa warqad soo saaray maamul goboleedka Puntland oo markaas shuruudo kale oo hor lah haddana kusoo kordhiyay arrimihii shirarka doorashooyinka. shuruudaha uu soo rogay madaxweynaha Puntland Siciid Dani waxaa ka mid ahaa in madaxweynaha maxaa la yiraahdaa awoodiisa la qeexo amaba sidoo kale madaxweynaha xilkiisa la cadeeyo oo uu la jeedo in uusan madaxweyne ahayn isagoo madaxweyne ahna aysan hor fadhiisanaynin isagoo Maxamed Cabdullaahi ah ay hor fadhiisanayaan. waa shuruudda koowaad. shuruudda labaad waxay ahayd in xilka laga qaado taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasiin iyo taliyaha sirdoonka gobolka Banaadir ama taliyaha nabad sugidda gobolka Banaadir Said Qajoon iyo taliyaal kale oo fara badan oo ciidanka ammaanka ah. waxaa moodaa markii albaab laga soo xiraba in albaab kale oo markaasi oo shuruuda ama caqabad cilad ah ay furayaan labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe Siciid Dani. waxaa marka arrintaas gadaal kasoo riixaya oo markaasi aan iyagu hadlin laakiin aad moodo inay ka dhex hadlayaan labada madaxweyne midowga musharaxiinta Soomaaliya dadka loo yaqaan waa Sheekh Shariif Xasan Sheekh iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo musharaxiinta kale fara badan Xasan Cali Khayre ka mid yahay iyo sidoo kale Mustafa Sheekh Cabdi Xuluw oo isagoo horey wasiir u ahaan jiray haddana xildhibaan ah. weli waxaa muuqata in markaa shuruudaha mucaaradka Soomaaliya ay usoo jeedinayaan madaxweyne farmaajo ay soo tarayaan markii mid la furiyo mid kale ay kusoo darayaan. haddana doorashadii waqtigeedii hadba mar ka dambeysa ay dib u sii dhacayso hishkulamadii loo balansanaa ee muuse ka dhacaan oo madaxda Soomaalidu siyaasiyiintu yeeshaan ay dib u sii dhacayaan. waxaa xusid mudan in madaxweyne farmaajo markasta uu ku celin jiray in maxaa la yiraahdaa Soomaalidu iyadoo kaliya ay shirto aan lagu dhex jirin iyagoo danahooda ka wada hadlaan wax kasta isku hayaan aan kala aragti duunaadaan laakiin ay tahay horta Soomaaliya kaliya inay shirto. labada madaxweyne Siciid Dani iyo Axmed Madoobe waxay ku adkeysanayaan in beesha caalamku shirka goobjoog ka ahaato, in maxaa la yiraahdaa media markaasi aan la soo gelinin oo aan la duubin waxa meesha lagu wada hadlayo qodobo badan oo noocaas ah. sidoo kale waxaa iyadana xusid mudan in maxaa la yiraahdaa kooxda C6+ iyadu ay galaangal ku yeelanaysa maalgal fara badan ku leedahay arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyadu doonayso inay meesha ka riixato dalka Turkiga iyo Imaaraadka iyo Qatar ismarkaasina iyadu ay la wareegto. kooxdaasi hore ayaan u sharaxnay cidda ay yihiin iyo wadamada ka kooban dib uguma noqonayno. marka waxaad moodaa weli inay soo tarayaan ama aysan meel dhinac uusan u badanin arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. waxaan ka warsugi doonaa maalinta berrito ah oo loo balansan yahay shirkaasi inuu dib mar kale u furmo oo isugu yimaadaan madaxweynaha maamul goboleedyada iyo madaxweynaha federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. waxaa weli cadayn in ay kasoo qayb gali doonaan shirkaasi midowga musharaxiinta Soomaaliya iyo si kasoo qayb gali doonin, balse waxaan ishaan ku haynaa waan idin soo gudbin doonaa wixii kusoo kordha. si toos ayaana shirka marka uu qabsoomaba idinkugu soo gudbin doonaa oo si live stream ay ugu daawan doontaan barta YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook-ga. aad baa ugu mahadsan daawashadiina. waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe saartaan, Facebook-gana aad follow iyo like isugu dartaan. aad baa ugu mahadsantihiin. tan iyo kulanto dambe waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo nabadin noola kulantay iyo ammaan Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.